waa qaybtii 23aad ee barnaamijka su'aalaha iyo jawaabaha. waxaad barnaamijkani ku arki doontaa qaar ka mid ah su'aalaha Instagram-ka. Su'aasha koowaad: Assalaamu calaykum barow, magacaygu waa Cabdullaahi Khaliif. Hal su'aal ayaan ku weydiinayaa, sirta ku jirta ama ujeedka laga leeyahay in dhakhtarka marka uu daawadu qorayo sababta farta la isugu dardaro oo aanan loo qurxin. Insha Allah waxaan rajaynayaa inaad iga soo jawaabtid. Mahadsanid. Dhakhaatiirtu si kastoo aysan isku mid u wada ahayn, haddana dhakhaatiirta dhexdooda waxaa fudud in dhakhtarka uu fahmo farta dhakhtarka kale wixii uu soo qoro, sababtoo ah dhakhtarku marka uu warqad ku qoro qoraal aanan la fahmi karin, dhakhtarka kale marka uu warqadda qofka uu tuso durba waxa uu fahmayaa xanuunka warqadda lagu calaamadeeyay daawadiisa. Xarafka ugu horeeya oo keliya haddii uu arko way ku filan tahay in daawada uu fahmo. Qof keliyaha ka xanuunsanna farmashiistuhu waa uu fahmayaa oo ma siin karo daawada madax xanuunka. Waxaa aad u yar tirada qaladaadka ee dhakhaatiirta dhexdoodii ka dhalata faham waaga qoraalka, sababtoo ah qofka farmashiga jooga iyo midka dhakhtarka waxa ay ka siman yihiin xirfadani caafimaadka, waana dhaqan weligeed jiri jiray. Balse dhakhaatiirta maanta waxay u muuqdaan kuwa farta qurxinayo marka loo fiiriyo kuwii hore. Dhinac kalena, dhakhaatiirtu sababta ugu wacan ee farta ay u qalqaloociyaanna waa kelimadaha ay qorayaan oo ah kuwa aad u dhaadheer. Daawooyinka magacoodii rasmiga ah magac cilmiyeed oo dheer, maadaama uu yahay dhakhtarku far gaaban inuu ku qoro ama xarfaha u dambeeya oo dhan inuu ka boodo ama inuu xariiq isaga jiido ayuu doorbidaa, waayo erayadani qoristoodii aad ayay u dhib badan tahay. Sidaasi ayayna dhakhaatiirtu marka loo fiiriyo dadka kale fartooda ay u foolxun tahay. Su'aasha kale: Assalaamu calaykum Cabdirashiid, magacaygu waa Isxaaq Axmed. Waxaan ku weydiinayaa mas'alo. Xilligii nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee, gaaladu markay islaamayaan way ashahaadan jireen iyaga oo qirayo inaanu jirin ilaah aanan ka ahayn ilaah, iyo nebi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee inuu ahaa rasuulkii Alle. Marka nebiyadii hore iyo rusushii hore qofka gaalka ah marka uu soo islaamayo muxuu tawxiid ahaan uu ku dhawaaqi jiray ee uu ku islaami jiray? Diinta Islaamku maadaama ay tahay diintii ugu horreysay ee Alle uu soo dejiyey laga soo bilaabo nebiyullaahi Aadam calayhi salaam, inkastoo nebi Aadam xilligiisu dadka oo dhan muslimiin ay wada ahaayeen, in yar oo dib ka gaalowday oo aabbahoodii Aadam dhegaysan weyse mooye inta kale waxa ay ahaayeen muslimiin. Qoladani gaalowdayna nebi kasta oo Alle uu u soo diro waxa uu ka dalbanayay laba kelimadood, kuwaas oo ah anicbudullaaha wattaquuhu wa adiicuun. In bilowgii ay qiraan ilaah mooye inaanu ilaah kala jirin, iyo rasuulka in ay qiraan in rasuul uu yahay, kadibna ay adeecaan ilaa laga soo gaaro nebiyullaahi Muxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. Dadka oo dhan kelimada tawxiidka hadba nebigii loo diray ayay qiri jireen, sidaasi ayayna ku islaamayeen. Sababtoo ah qofka si uu ugu xirmo Alle waxaa laazim ah bilowgii inuu aqbalo nebiga, kadibna shareecada Alle uu qaato. Su'aasha kale: waan ku salaamay, magacaygu waa Zubeer oo jooga Hargeysa. Waxay su'aasheedu tahay sidan: waa maxay sababta ka dambeysa in waqtiba waqtiga ka dambeeya in noloshu cidhiidhi ay sii galayso? Mahadsanid. Dunida aynu ku nool nahay waqtiba waqtiga ka dambeeya, dhibaatooyinka, cudurrada, aafooyinku waa waxyaabo qofka uu la kulmayo, waayo nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa waxa uu sheegay qarnigii uu noolaa inuu yahay qarniga ugu fadliga badan dunida, midka ku xiga iyo midka ku sii xiga ee taabiciyiintuna inuu yahay qarniyadii ugu fiicnaa ee bani aadamku uu noolaaday. Intaa wixii ka dambeeyana isbeddel ayaa imaanaya, waxaase ugu sharta iyo dhibka badanna qarniyada aakhiru zamaanka uu soo dhow yahay. Tanina waxaa ugu wacan shardiyada nolosha oo noqday kuwa aad isku beddelay. Dadku waxa ay maanta ku xirmeen aaladda tiknoolajiyada, fahamka iyo wax akhriskuna hoos u dhac aad weyn ayaa ku yimid. Dadkii intoodii badanna waxa ay noqdeen kuwo caajislayaal ah marka loo eego generationkii hore. Maalinba maalinta ka dambeysana dadku waxaa ku adkaanaya nolosha, halka waagii hore dadku ay ahaayeen kuwo nidaam leh oo subaxii u kala ha shaqo, galabtiina si toos ah shaqooyinka uga soo laabta.
ciriiriga noloshuna waa mid weligii sii jiri doona oo weliba sii laba jibaarmi doona. Waxyaabaha laga baqayo ee ciriiriga nolosha ee soo wajahan dhowaan waxaa ka mid ah abaaro xoog badan oo biyo la'aan ah in dunida meelo kala duwan ay ka dhacdo. Nolosha adduunkuna mar haddii imtixaan ay tahay qofka mu'minka ah, ma aha halkani goob inuu ku raaxaysto loogu talagalay. Wax walba oo dhib ahna marba marka ka dambeysa qofku imtixaankiisu waa uu sii siyaadayaa mar walba oo noloshuna isbeddel uu ku imaado. Su'aasha kale: assalaamu calaykum, magacaygu waa Maxamed Fayle oo jooga Gaalkacyo. Su'aasheedu waxa ay tahay, isha bani'aadamka iyo sixirku ma isku mid baa? Isha iyo sixirku ma aha kuwo isku mid ah. Waxaa wax ilaysan kara qof walba, xitaa qof ayaa isaga naftiisii dib isku ilaysan kara. Ishuna uma baahna aqoon gaar ah, waa dareen xasad, nacayb iyo karaahiyo ama jacayl xad dhaaf ah ama maseer xad dhaaf ah qofka inuu isku fiiriyo ama in lagu fiiriyo. Balse sixirku waa aqoon shaytaani ah oo si gaar ah loo barto, sidaasi darteeduna isha iyo sixirku ma aha kuwo isku wada mid ah. Su'aasha kale u dambeysa: assalaamu calaykum ustaad, magacaygu waa Maxamed Yuusuf Maxamed oo jooga Muqdisho. Haddii dunida aynu ku noolnahay hal saac oo ka mid ah uusan shaqayn gravitational force ama cufis jiidadka dhulka, sidee ayay noqon lahayd nolosha dunida? Wax walba oo nolosheenii ka mid ah iyo midda kownkaba waxa ay ku xiran tahay afarta quwadood ee aasaasiga ee fiisigiska. Quwadda gravitationkuna saacad daaye ilbiriqsi oo keliya haddii la waayo adduunka oo dhan, marxaladdii Big Bang ayuu dib ugu noqonayaa. Wax jiri doona kownka oo dhanna ma ay jiri doonaan. Xidigaha, qoraxda, meerayaasha, wax walba waxa ay bilaabayaan in burbur xooggan uu ka dhex dhaco. Kownka oo dhanna wax walba walaxda kale, waxa inoo muuqda iyo waxaanan inoo muuqan, cadaadis ayay isku hayaan. Gravitationku haddii meesha uu ka baxana, ma jiro walax kownka walax kale ka celin karta, waana burburka ugu weyn ee dhammaadka nolosha.